ولا لا ومد كستا waxay leedahay ciid ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kulli ja'alna minkum likulli ummatin ja'alna man sakan likulli ummatin ja'alna man sakan ibn abbas radiyallahu anhu wuxuu leeyahay ciidan umad kasta waxay leedahay ciid nabiguna uu sheegay alayhi salatu wassalam inna likulli qawmin ciidan ciiduna waa tilmaamaha iyo astaamaha iyo baadisooca ummaduhu ay leeyihiin umad kasta qaabka u ciido waa mid ka tarjumaysa waxay aaminsan yihiin iyo waxay yihiin iyo waxay doonayaan iyo xagga u socdaan iyo xagga ka yimaadeen haddaynu muslimiin nahay ciid baynu leenahay laba ciidood oo qaali aynu leenahay ciid al-fitr iyo ciid al-adha nabigu sallallahu alayhi wasallam madiina ayuu yimid markaasaa wuxuu arkay iyagoo ciyaaraya uu weydiiyey ma haadaan al-yawmaan labada maalmood maxay yihiin dabeetana saxaabadu way ku jawaabeen waxay ku yiraahdeen kunna nal'abu fiihima fi al-jaahiliyya markii aanan soo islaamin xaaladeedu jaahiliyada ay ku sugnayd ayaan ciyaari jirnay sidii maanu sii wadnaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri iska daaya ilaahay wuxuu ku bedelay laba maalmood oo ka qiimo badan nabigu wuu ku oran ciyaarta daaya laakiin labada maalmood bedelay buu ku yiri nabigu alayhi salaatu wassalaam labada maalmood bedela oo labada maalmood ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo dooray waxa weeyaan wixii aan qabanayseen ee fantastikiyo iyo ciyaaro iyo wixii aan sameeyseen sameeyay sida awgeed waynu ogaanaa ama aynu xasuusinaa ciidda aynu leenahay maadaama ay ka duwan tahay maalmaha ay tahay maalmaha ciidaha gaalada sidoo kale waxay kaga duwan tahay qaabka loo ciidayo muslimow waana xasuusnaataa baadi soo codleedahay laba maalmood oo ka duwan maalmaha ay ciidayaan qolinka gaalada iyo gaala raaco ayaynu leenahay qaabka loo ciidayaana waa qaab ka duwan qaabkay u ciidayaan gaalada waa inaad isweydiisaa ama qofku isweydiin karaa qaabkaynu ciidayno iyo qolinka aynu kala diintaana qaabkay u ciidayaan ma isku mid baa ma la ogolaya inay isku mid noqoto shariicadiinu sama diidanta waxaanu leenahay isku mid ma noqon karto shariica ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka timid ciid ku sheegan iyo ciidda gaalada isku mid ma noqon karto qaabka loo ciidayo iyo say tahay in loo ciidaa haddaba isxasuusi kooban qaabka muslimiintu ay tahay inuu ciidaan shariicadu inoo sharciyeysay ugu horreyn qofka muslimku wuxuu ku ciidaa oo ciidiisa ku bilaabaa inuu salaada tukado salaat al-ciid in la tukado ابن عمر رضي الله عنه يقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنسة بين يديه تحمل وتوصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يجري مصلاها عيدة يقول كل يجري سوسوت كذا سأوجد وين الحصوصناتها إن صلاة لقى مارمان عيتها إلى سوت كذا واحد جرى اللي ربضن أو صلاة عيدة كسحر وحنا كسحر خير كسيرين علماء المسلمين قال كل بقى قبل صلاة عيدة إلا تكذا إلى فرلتها halka dambi baa kaga soo leexanay salaada taatibu ida ciida dambi baa kaga soo leexanay sida ugu waxaan leenahay salaada ciid hala taro oo laga qayb galo muslimiintu muslimiintu ay ku tukanayaan laano tilmaantaadi weeyaan muslimo qaabka ciidiisa ka waxa ka ah in salaada tagto muslimiintu muslimiintu ay ku tukanayaan aad kala qayb gasho hadaad ka tagto waxay ka dhigan tahay tilmaan weyn oo ilahayd صلاة ممالك عيد آيات كتكتك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر تواوين إسلام كم تهي إن صلاة عيد تكتك لبا صلاة عيد أما وقت مالك عيد تلمان تقول لي هي يقف مسلم كاسر عيدي سؤال تهي والتكبير وين التكبير صار واللي بعيد الفطر وين قصف له تكبير تروح بلعب مساء habeenka ay ciid soo galayso marka cadceedu ay dhacdo oo habeenku soo galayo ila salaada laga galiyo takbiirta wala wadaya ilaahay wuxuu leeyahay wala tukmilu al-iddata wala tukabbiru Allah ala ma hadakum imam shafi'i rahimahullah wuxuu leeyahay fasami'tu man arda min ahli al-quran يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وحلي الإمام الشافعي رحمه الله ولماذا أقونت أولى قرآن كواحد كم غلا يقوله tirada loo jeedo la dhameystiraya ayadu sheegaysa waa tirada bisha Ramadaan marka dhameystirtaan waa inay ku xigsiisaan si ayadu sheegayso ilaahay ina weyneysaan subhanahu wa ta'ala kuna weyneysaan sababta uu weyneysaan ay tahay wuxuu ku hanuuniyay soomka iyo khayrka iyo barwaaqada ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku deeqay
سمد عيد المسلم وحي لا ذهي وصدحه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين وإن الله سما فرضتك مساكين تا يدك ليته سيدا أوجد عيد الفطر يقول حلقة مرمانا قف من تاني يقول يسكسوا عم بحين إنه صابح يسكات الفطر لما كيلو يبر إنه صابح سيدا كلام علماء قارقوا حي بنينا يان لما عشوا مركي كهر سنة هاي بشهر رمضان وأنا دمان وتسيب حين كرتا سكات الفطر قاعد تلمانتا عيد مسلم وحي لا وأفره الفرح والسرور إنه قف مسلم يكون فرحان أو فرحته أكمل غطاه أو رهينتا iyo waxa weeyaan farxadu ku faraxsan inay ka muuqanayso nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ogolaaday qolooyinkii xabashada ahaa ee Madiina joogay ee muslimiinta ahaa inay ku ciyaaraan maalinka ciida masaajidkiisa markaas Aisha arkaysa markaas nabigu kulli alayhi salatu wasalaam waxa doonaysa inaad daawato markaas nabigu isku gudbaya markaas ay daawanaysa ila ay ka dharagtay kama dhaqaaqay nabigu alayhi salatu wasalaam waxa ku muuqanaya in ay tahay in la ciyaaraa wax muslimka farxad gelinaya uu ku faraxsan yahay maalinka ciida shacaa'irta iyo tilmaamaha weyn diintu ay leedahay in la weyneeyo oo qofku uu muujiyo inuu ku faraxsan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciga uu inoo sharciyay maalinka inuu faraxno waxay tilmaamaysaa qofkan in qalbigiisa ku jirto alla ka cabsi iyo diintu inay la weyntahay waxaad ka dhex arkaysaa xadiiskan hore ku soo bilowna khudbada إنه النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي أنا أديدين إن عياران مالك عيدا لكنه كبدل معلمين العيارة أما وحويا فانتستيقية وحويا عيارها للسمينية سيدا وجد قف المسلم كانوا سيحضر معه وإنه موجية فرحات مالك لولي وإنه موجية ما هي نصيحته وإنه موجية مالك الأكتر دينه كوية لأنه شعائر الإسلام كمت مسلم كيف فرحات قليلة عدو جيك على السينيس تذكر دينته نعبا بسنة وين قف مسلم كم حي وحويا مالكها وفرحة فرحة معناه ده معها إنه قف معاسس مية إنه دينته حينداب كذا كتلا إنه وحنا شرعه وقالوا كتلا بصور معها وح قف مسلم ذاك بدن وحي هاي حلالية سبحانه وتعالى قدر كشنات أي تهقف مسلم كعيد إنه كقابله عيد مسلمين تنا وكسوا عنتها وعيدا كلاي كسوا عنتها ونصوا عايتها وإنه ما يدعى وإنه الصوغ حيا وإنه الصوع عليا ابن عمر رضي الله عنه وحليه نافع كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ابن عمر وحا عاده وهيد إنه صوم يدو مالك عيدا إنتانه أما بحين مصلى عمر رضي الله عنه مالك مالها كمدا أيها أوكي النبي صلى الله عليه وسلم تبد حريرة كذا يقول يا رسول الله تتمل بها للعيد والوفود رسول كله تبدا قاضي وواحد اسكو حساب oo isku qorxisa markii waftigu ku yimaadaan wufuudu ku yimaadaan iyo maalmaha ciid nabigu sallallahu alayhi wasallam uu diidin inuu isku qorxiyo laakiin wuxuu ku waa xariir hada libaas man la khalaqa lahu laakiin nabigu uu diidin in la isku qorxiyo maalinka ciida la isku goonayo maadaama dadka muslimiintu ay soo imanayaan qofka muslimku weyn soo hagaajiyo soo cadaya macnaheedu ma aha inuu mariyo cusub soo xiro laakiin mariyo nadiifa oo udgoon inuu soo qaato ayaa loo baahan qodobka lixaad ee ciida muslimiintu ay ku soo cantahay أي تهينا إنه كسرنا التهنئة ولا استهنية دي صحابة رضوان الله عليهم وحدقنا وهيد ما لك عيد مركب كلمان إيه أورنج تقبل الله منا ومنكم إلهي سبحانه وتعالى ما يديك وهيد كان قلوك عمله ونكسن يا سمين إنسان حلو بهي مالك أسئله ننوي هذا وأكتر أنا قيمة كوية شو موجنا إنه قيمة نحن كلية قالوا كتضوات التوسع على العيال خيار كان أنت تيجي إنك بدن هنا تسيس وحي خرج يكون بحجري مركي هرا مالك عيد إن لغير كرديو يضن إسرافنا على السمين هي ابن حجر رحمه الله وحلي حديثك حبشدي مساج بكل عيار اسمه تعليقنا في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال أيام العيد حديثك هو حكم مقرأ إن يتهي مشروع ويبنانتهي ودين تناصر كل يضحي إن عرضت مالك لو على فيديو أو وحي لسين شري وحي لو قبن شري يوحوي لو كرديو بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن waxa Allah ruux kasto sharaacadu ay banaysay oo naftooda ay ku dagayso ama ay ku raaxaysanayso ama ay ku kala badbadanayso waa iloo sameeyaa buu leeyahay xadiiskana way ka muuqanaysaa wa anna idhaar as-surur fi al-a'yad min shi'aar ad-din inuu qofku muujiyo farxad ya rayn inuu muujiyo maalinka ciida waxay kamid tahay tilmaamaha diinta
maaha adoo wejigu xidhay inaad soo baxdo ama adigoo murugaysan adigoo ooya maaha maalinkani waa yowmu farax waxaa loo baahan yahay maalinkaa ciidda in la iscafiyo ka horna la iscafiyo maalinkaana dadka muslimiintu cidda wax ka dhaxaysa inay iscafiso sidoo kale la isbooqdo waalidkana loogu horreysiiyo waxaan leenahay haddaynu muslimiin nahay baahi uma qabno reer galbeed iyo gaalo noocyadooda kala duwan oo dhanba inaynu kaga dayano qaabkaynu ciidayo baahi uma qabno waxa ayaan daraa qof muslima oo u arkay islaamku wax kasta inuu ka wanaagsan yahay haddana gaaladii u dusaya oo dhaqankoodii ama ciid ha noqoto ama dhar ha noqoto noloshooda qaabkay u dhaqmaya labada jeer muslimka keebad qaldanta marka leedahay islaamku uu wanaagsan yahay iyo marka reer galbeedka aad u dusiso waxoodii aad ka soo qaadanayso aad ku dhaqmayso waa inaad ogaataa muslimo maalinka ciidda lama baahna habla isqaawiye waalidka waxaan leeyahay carruurtiina isqaawinaysa aakhira waa la weydiin doonaa marka ku talagala su-aashaas way taallaa faacadda lihada su'aali jawaaba waalidka hablaha aynu arkaynay bannaanka isku qaawinaya maalmaha ciiddaynu aragno dee cid baa dhashay ha ogaada waalidka waxaan leenahay aakhire waa la weydiin doonaa famaada antum qaa'iluun maxaa ku jawaabi doontaa carruurtiina soo qaawinaysaan ee maryaha qaawinaa u yeedhisaan tus'aluun waa la weydiinaya waxaanu leenahay maalmaha ciidda waxaa jira dadka gaala raaca ee gaaladu ka daba dhacay waxyaabaha ay sameeyaan ee shareecada aan ku bannaanay waxaa ka mid ah heesaha iyo durbaano meelaha lagu tunto waxaanu leenahay heestu islaamka dhexdiisa xaaraan bay ku tahay qofka naftiisa iyo shakhsiyadiisana waxyeellay ku tahay waa inaad ogaataa qaacidana qaadataa wax kastoo shareecadu xaaraantinaysay dhib adduunyo iyo dhib aakhiro labaduba way ku jiraan dhib aakhiro qudhataa kegin adduunyada xataa way ku dhibaataynaysa maalinka ciiddu maaha maalin qaad la cuno maalin mukhadaraad la cuno maaha maalin la isu ballansado bannaano la fadhiisto iyo waxa weeye geedo loo baxo oo qaad lagu cuno ma aha qaadku waa xaaraan waana ogtii dhibaatada ku haya bulshada suuragal maaha dhibta waxa intaa leeg leh in shareecadu ay dhamayso suuragal maaha waxa xaaraana maalmaha ciidda qof dumarku inay u soo baxaan iyagoo cadar ismariyey goobaha raggu ay joogaan ragga ajnabiga ka inay u soo baxaan dumarku iyagoo soo cadariyey ogaada dumarow arrintaas islaamka dhexdiisa xaaraan bay ku tahay ma bannaana aakhirada lagu sameeyo waxyaabaha xaaraantii dadkeenu ay sameeyaan maalmaha ciidda ee diinta islaamka ku bannaanay waxaa ka mid rag iyo dumarku ay isdhex qaadaan sawirka wada galaan waxaas wax islaamka ka tarjumaya maaha muslimiin ogow ficilka noocaas ay samaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla ilaahayna wuu kugu caroonaya waxaa isweydiin leh maxaynu gaalada u raaci lahaa maxaynu ugu dayan lahaa qaabkay u ciidayeen maxaynu ugu ciidi lahaa kow haddaynu ku dayanno maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya ilahay baynu ka fogaanayna subxaana wa tacaala diyaar baynu ilahay baynu ka fogaana markaad u ciiddo qaabkay gaalada u ciidayaan waxay samaynayaan la samayso waxaad ogaataa ilaahay baa kuu cadhoonaya ilaahay baad ka fogaanaysa diyaar bayaad u tahay laba waxaad ogaataa muslow waxaad leedahay baadiso jiritaan baad leedahay waad ismasaxaysaa waxaad leedahay anigu waxaan hayaa waa wax liita wax macnale ma aha waxa reer galbeedku hayaan ama jayniisku hayaan ama gaaladu hayaan ayaa qiimo leh talow ma ismaqlaysa saddex waa inaad ogaataa muslimow markaad sida gaaladu u ciidayso ee waxay samaynayaan aad samaynayso waxa gaaladu ay samaynayaan wax khayr ku jira maaha khayr adduunye khayr aakhira midka heli maysid waa dhibun dheefi kuma jirta habeeraata waa inaad ogaataa waxa gaaladu ay samaynayaan iyo qaabkay u ciidaya markaad u ciidayso waxaad ka raadinaysaa inaad faraxdo inaad reerayn ka hesho inaad kala badbadato waxaad ogaataa shay kasta oo shareecada khilaafsan waxaa laga dhaxlaa maxay murugo inay laabta ku gubato farta dhexdeeda ka qariinto intaan aakhira la tegin adduunkaba murugadu tini cirib ay kugu dhamaato waxa ayaan daraa in aynu kala garan laanahay ama aynu iska dhaga marayno in badan oo inaga mid iska dhaga marayaan islaamku inuu leeyahay qaab u gaara ciid ay tahay in loo ciido waxaanu leenahay diinta hala qabsado diinta
تمسكوا بها دينتها لقصة دينتها الغفاء وينو آمن الدين تنين يتحي وحكستها يكسن إن نوها ممس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى شيء كستولا سوق هذا تو نكسب الدين تنوشي بيس من هذا الكلام يقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي أبو ري أي إنوشي يقول وحقوه نكسن وحكوا قرين كتاب كني دينتي نقاط وحلو لا ما هي دينتها الغفاء ولي بدل يرضوا دينتو ذا مفانا يعني كفانا دينتو ذا واحد المامسو يقاب كيتلاه لو عيدو يو ودا كستو إنه تلمانتو شرفتا يقيمه بيده كجرتاي هلا قاتو إلهي سبحانه وتعالى قال دينتو كل ما هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار